عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. On the authority of Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, it is not permissible to spill the blood of a Muslim except in 3 instances: the married person who commits adultery, a life for a life, and the one who forsakes his religion and separates from the community." Al-Bukhari and Muslim. ibnu Mascuud Ilaahay ha ka raali noqdee wuxuu yidhi, rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, ma bannaana in la daadiyo dhiigga nin muslim ah, ka marag ka ah in ilaah kale jirin, oo aan Ilaahay ahayn, aniguna aan ahay rasuulkii Ilaahay, 3 midkood mooyee, qofkii isagu xaas leh, sinaysta, iyo naf loo dilay, iyo mid diintiisa ka taga oo bulshada ka sooca. Waxaa wariyey Al-Bukhaari iyo Muslim.